السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواء أفتين channel. halkan oo mar hore aad ugu barateen in muuqaal caadi aan soo dhigno laakiin sanad iyo xoogaha muuqaal aan soo dhigin laakiin maanta jimcaha ka bilaabato waxaan rabnaa inaan muuqaalo maalmaha soo dhigno si toos aan YouTube ugu soo biirno. maanta waxa garabkayda fadhiyo Moha oo nin culus oo maanta ila sameyn doono challenge ugu horeeyo aan channelkan aan ka sameyn doono duuleemay uusan dhihin. channelkan magaciisa hore wuxuu ahaa Aftin Media laakiin maanta ka bilaabato waxaan u bedeli doonaa Aftin Channel. haddii channelkaad ku cusub tahay soo dhawow, subscribe noo saar, si noo share garay si muuqaalka meel dheer u gaaro. Taaw soo dhawow. Adhowahay. Haye. waa la kicina waa la shidaa. Maqaayadan sanad baa jinsaneed. Dholaan ku maqnay. Kadib maanta baalkan waxaa noogu jiro. Koobka maxaad ku wadataa maanta? Waxaan ku wataa qardaaso. Koobkan bakeeriya maanta waxaa noogu jiro warqadahaas waxaa ku qoran su'aalahaas marka waxaan rabnaa in qof walba warqada nasiibkiisa ku soo aado in su'aasha ku qoran uu si toos ah ugu jawaabo. waxaan u maleynayaa inaad maada bilaab masana noo bilaabay. Noo bilaab. maad waxaa la baxday hal xabo. Waxaa la baxay malaha. maadaama aniga aan furay soo dhawow adiga channelka marti ku maanta. Waa dhawahay. Adiga noo bilaab. Asxaabta soo dhawaada. channelkan wixii warqada ku soo baxay dad weyn ay ka horfadhiyaan. markaan waa muuqaalka shaqeeya haddii aad ku cusub tahay subscribe noo saar. asku qortay waxa ku qoran oo ku soo baxa adiga la jawaabtay laga rabaa. sheeg xayawaanka aad adduunka ugu neceb tahay. ma ku soo baxa sheeg xayawaanka aad adduunka ugu neceb tahay. xayawaanka adduunka aad ugu neceb tahay xayawaanada adduunka nool noo sheeg. eyga oo neceb. eyga maxaad ku qoratay? haweeney soo bursaday. maxaa dhac أنا هول في عين مرايس مال كون لو خجر هذا قال لي ما لو صو دري مثلا وهذا هذا دانسد واحد يوصل دري ما الماس مش كويس الماء صح انتو كل قاري مرك اسكدا هذا ما تهتاس رجع مرك اي قد نعبته اي قد نعبه اي بسم الله الرحمن الرحيم انا قلت توكلي دواعي وحي uu su'aalo warqadahan kulli waxa ku qoran su'aalaas wixii ay noqoto ii soo baxdo nasiibkayda inaan si toos ah ugu jawaabo ayaa aad u muhiim ah. aniga waxay soo baxday sheeg 3 gobol oo Soomaali kamid ah. gobolada Soomaali taqaanaa? gobol aqana suucan hal gobol waa degmo gobol waa kala tahay. ay marka waxaan u maleynayaa waa adiga saas u kala taqaanid 3 gobol oo Soomaali kamid ah. haddii aan isku dayo gobolka Banaadir waa gobolka Mudug ama Galmudug. gobolada waqooyi bari Soomaaliland waa dawlad maahan gobol Soomaaliland ma caadi waay waa gobol Soomaaliland ka tirsan waa laakiin ay dawlad gees ay sheegteen hay soddon tookadaada waay warqada su'aasha labaad iyo wax ku soo bax nasiibkaada. bismillah afirin waxaan marayna su'aal in aad u fududii wixii soo socdo adiga waxaan marayna in wixii fududaa ay kugu soo aadayaan oo nasiibkaada aad u wanaagsan mala. warqada labaad iyo su'aasha labaad maxaa ku soo baxay? sheeg xildhibaanka ugu horeeyay degmada Lafay. dadka ma ayaa Lafay aqaan. Lafay waa taqaan marayna Soomaa ma Lafay dadkan aqoonin waa la baraad kadib adiga marka xildhibaanka ugu horeeyay oo degmada Lafay laga doortay ma hubo مسيكن شعبان علي قصاي شعبان مدني شعبان علي ما جيش تحن يا ربع شعبان علي قصاي ما غناني هكذا ما غن شعبان علي ساعة وانا أنا سوما ملينا مركب حلبان كوري كاسو ليه مبتع مبتع ايكسو صح سنة كين ايكسو صح سنة كدورت سنة ك 20 كا aniga taamo hubi laakiin 2013 ku umaleynaya hadii ninkan uu qalday waa commentiga anu wala sax inuu xildhibaanka degmada Lafay horta dad baan aqoonin Lafay meel ku taal Lafay waxay ku taalaa Mandera oo kamid ah ismaamulada waqooyi bari Kenya. waxaan umaleynaya dadka qaarkood oo Soomaalida halkaas waqooyi bari waxba ka aqoonin waa qaybta Soomaalida wadanka Kenya ay ka tagtay waqooyi bari lahaa kadib 3 ismaamul ay leeyihiin Garissa iyo Mandera
marka degmadan aan sheegahayn waa degmo cusub oo 2003 ugu horeeyay xildhibaankeeda ugu horeeyay oo Mandera ka tirsan marka ninkan waxaan weydiinay su'aasha ugu horeysay su'aashiisa ahayd xildhibaanka ugu horeeyay laga doortay degmadaas in uu sheeg aniga marka nasiibkaydu waaye su'aashayda labaad waxay soo baxday sheeg 5 wadan oo magaca ka bilowda xarafka A soo badbaad 5 wadan ko America سواء قلت يونايتد ستيت امريكا استراليا ارجنتين ارجنتين اوستريا هلا بقول من وين بلايس هل حبايدي من اوستريا الجيريا واصح سؤال سؤال هذا هو سؤالها هو سؤال دقيقة كل جدا كل فضل كل سؤال كده كحسن يا كده كحسن هاي سؤال أو سجوجة وقو أيسن سنة هو عاوي شيك سدح أري أو سومالي سجوجة وقوني أو سومالي كليسن أقوني السجود ما دام عتاي حمرنا لهجة حنا ولوك الدنيا سومالي وقتها هو شنت سومالي وقوي كونفور أتاس كل لهجة معهم ما دام على السجود عتاي يا مركز سدح أري ولا يعرف سومالي سجود وقونيا أو سومالي كليسن أقول إن اللي جا فايديست سقطي وابديهن سدح لك شيء كله سقط كبوت ويل أيه كبوت وأري وقوني ما سجود هذا وضع مركب معناه بحيث تذكر أقوني كبوت يلا سؤال بس دحلا عاج أو سريد لو درس عنصر هذه ويتد ولو ويسيستا مسخشنا لو هذا سو مركب بود الله لكن واستحلا عادي وسليد مركب سليد laga dhamay kadib loo isticmaala in lagu weysiisto lagu qabaysto miya ay garaa mid labaad midkood waa ka haya mid labaad waxa waaye جنادي حاسس أنا سجوك تعرف سواء أفكار تمتغن ستة حيرة كرافو حمرنا واسكا هذه عادية والله وريها جنادي لا هو أي جنبين وكم مقيس كم عندنا كوب ما يعقله بكيري أي بكيري دسكوا اسكعاي شمان بكيري واري ومش والله ولا يقارن يا سمال الله اي شيء قاعد السؤال هذا كو تاغنت لو سؤال لو جواب قدم لو جواب يدم بربرة ها اي ما لك ولا بربرة وضو اي مد كلا قدم مستعد سان سجوكتا سوا ما وحي سؤال هل بس اقول مستح سؤال اللي هو سدح اريك شير ولا بقولال اراجر وحي مركي مش اللي ما ويلو مانوت صح ولكن اسكو دينا اسكو تاي هل قود ما شيء مد كلا waxa waaya جو محلا ما قانا idin waxa dadin masquulana انا نفتي سجوها Soomaalida kale macna ku fiirsanaysa oo naqoonayay sujuuga suulida caadiga Soomaa xamarina waa sujuunada adiga waa wax badan wali ku jirmeen waa wakiil la dheeriyada aniga waxayna kulanay waa Soomaaliya nooyin marka waa wixii ma ay Soomaaliya marka jooga si wax was Swahili waa dib male aniga marka su'aashii saddexaad baylo shoko ma qanday shoko والله شوكة مسار كذا الوجه سجود شوكة ده شوكة أنا لكن أريد كله سواحل سماعي أنا وقتي أنا اللي نحضر شوكة أنا أي ما نجم بالملا وأصحابته أصيب بقسي أفراد الشيكتي كل يوم حملنا واحد من لقى فائدة طور أنا سواحل صباحتي محاد أصحابتي يوتيوب كقعد سنين سواحل وحن قعد سنة ما دام يوتيوب كان دور سنة وإسكا فديي وحالين كعود سنة إن هدي موقال كانوا كسو غاري إن يوتيوب كاد كو عصبتا إنا سبسكرايب نو سارتو هدي أصحاب تادنا دو شير غريسو سي موقال كامل ليرو لو غارو حتى كديبنا عاد نغا فلتان
muuqaalo joogta maalinlaha insha allah abdullahi may awsan إن شاء الله إن شاء الله su-aasha ugu fududeed ay ugu soo إن hagtay شاء الله asxaabta su-aashaas kuwa maxaa asxaabta naga codsanay ما صار intee شانل ya شانل صار ay waxaad sheegtaa magaca hore ee loo yaqaani jiray gobolka waqooyi bari ee Kenya NFD waa saxan tahay NFD ya NFD magac ugu horeey oo loo yaqaani jiray gobolka waqooyi bari sax gobolka Kenya waqooyi bari magac hore loo NFD yaqaan NFD loo yaqaan jiray NFD waxaa umaleynaa waa soo gaabi xarag xaraf oo la soo gaabi waaye marka maxay kula tahay in saddexda sare ay ka kooban yihiin ay kula tahay haddii noosan area abbreviation maadaama uu yahay saddexdaas NFD waxaan u malaynayaa ereygaas oo NFD laga soo gaabiyey oo magac hore waqooyi bari Kenya ah Soomaalida meesha Kenya ay ka tagtay magaca waqooyi bari Kenya ka hor waxaa loo yaqaan NFD xarafkaas ninkan uu sheegay waxaa laga soo gaabiyey u malaynayaa Northern Frontier District la jiray saas laga soo gaabiyey saddexda xaraf NFD waa magac ay caan ku ahaayeen waagii gumeystaha ay isticmaali jireen kadib waa laga bedelay North Eastern Province loo bixiyey xarafkaas marka waa NFD magac hore loo yaqaan jiray noocaas waay aniga su-aashayda afraad ma maraya su-aasha shanaad waay su-aasha xigta oo aniga ugu soo aaday ma aqaan inay tahay mid afraad iyo mid saddexaad waxaad qaadaa hal hees oo Xasan aan Samatar su-aasha waxay kugu fiicnaa aad qaaraamiga tahay Xasan Samatar waa fanaan aad loo wali yaqaano dhulka Soomaalida meel ay joogaan heesiisan waa heeso caan ah inkastoo aniga heesaan isku wanaagsanay laakiin haddana waa isku daya maadaama su-aasha igu soo hagtay kabanka miyay qaraacaysa iskiga loo qeyaa mataqaana si kama loo qaraacay ma aqaane waa wax badan aan ka arkay moogtahay qaaraamiga aad ugu dheeraysaa ku dheer dadka ay u soo jeedin heesta Beledweyne aan laba erey inkastoo bilowgii dhamaadkan aqoon laakiin haddana waa meesha bilowgeeda taa ma aqaan laakiin waa dhexdaan ka qabsana Beledweyne allahayo dhamaystir Beledweyne allahayo kadib meel barwaaqiyo intaas ma dhaafin karo waxaan u malaynayaa ninkan inaad adiga wax badan ugu dhaantin inaad su-aasha inay adiga kugu soo hagtaa wanaagsanaad si aad bilowga ilaa dhamaadka hay su-aasha xigta waa adiga bismillah heeso ay u soo hageen ilaa hadda waxaan u malaynayaa in ay wixii ugu sheeg loo qof oo aad YouTube-ka ku xiran tahay YouTube leyda laba qof aad u xiran tahay oo aad u daawatid mar walba oo aad miyaas waa Maxamed Qadar ay number 2 waa Asad Hajo iska daawada mararka qaar ama soo badan tahay inta badan waa number 1 waxa su'aalaha aniga ku sheegay martay inuu su'aalaha waa nasiib badan su'aalaha ugu fudud oo ku soo gaagahay aniga soo kala waxaan jeclahay inay su'aasha ugu sahlan ay ugu soo hagto maadaama su'aalihii hore ay ahaayeen ku aad u adag heesi iyo waxba aanan tabar waxayn inay ugu soo aadayeen su'aashan su'aal la mid ah igu soo hagtay sheeg 4 wadan oo magacooda uu ka bilowdo xarafka sa ama s هذا حرف سؤال شو ساعد وحياة حرفها سو مهم ما دام اس هي تهاد وحن قبلها صوماليا سويسرلاند ساوث افريكا يو سيشيلز وطن كبير هذا افريقيا انت السودان اسمعتين اما السودان هي بسم الله في عام لا صدح بارتي marka laga tago mid hadda adiga adiga laba ku wartan hana bayaari saas fiican adiga bilaabmaya soo ana bilaabay ay saddexdan laba aniga leh hal aniga ugu dambeey macna Sheekh Xuseen Weytaan magaciisa saddexan Xuseen Weytaan xildhibaan kadda Soma mandaraist xildhibaan ku magaciisa saddexan Xuseen alla ana maxay weydiin hada laga rabaa su'aasha jawaabteeda أنا كومنت نوصل مرة متقارد بيها حسين محمد عبد الرحمن ومساسا كعربة
سامع يقرب يعني ساسا كعرب اسمه معناه حسين ويتان اسكنا حسين ويتان وتقانا ميا ها دم ملا إن مقع ساد انا وين نمبر مقع ساد قرن ويس حوغاها waxay tusinaysaa inaadan dadka madaxda ku haata aadan si fiican u aqooni su-aalaheeni intaasaa noogu dambeysay halkaasaan muuqaalkan kusoo gabagabaynaynaa والسلام عليكم waxaan rajeynayaa in maxamed uu dhowr badan moha uu dhowr badan oo hadda kadib uu muuqaaladan dib ugu soo noqon doono hadii ilaahay uusan dhihin fadlan waxaan ka codsanaa haddii muuqaalkan aad ka hesheen like aad noo saarto share-kan aad noo taabato si asxaab badan u gaaro haddii aad ku cusub tahay channelkan aad subscribe noo saarto intaas ayaa muuqaalkan kusoo gabagabaynaynaa maanta kadibna waxaad naga filitaan 24 saac kadib maalin kasto in muuqaal channelkan aan soo dhigi doono haddii ilaahay uusan dhihin intaan haddii aad nala soo gaartay waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hay intaan bixin laba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وين سلام عن المامن عندها شغل فرت بلاش waa lacag ها subscribe ala saar channel سبسكرايب على سهر صار فقيه صار قلت